السلام عليكم أصحابتي soo dhawaada maanta waxaan wadaa muuqaal cusub ujeedkayga ma aha isbitaalkan cusubka ee Soomaaliya laga furay inaan ka hadlo horta waa wax fiican alif mabruuq aleeyahay dadkii furtay Ilaahay ha u barakeeyo waxa ka rajeynayaa inay u cadaalad falaan dadka aqoontooda ku xushaan masaakiinta ay taageeraan Ilaahayna uu ayagana ajri xasanaad ka siiyo laakiin waxa isoo jiitay waa hadalka madaxweynaha ku hadlayo waa idin soo deyn doonaa asxaabey ayaamahan waxa karaash maal dhahaa jaceelka adduunka u qaada madaxweynaha yacni jaceyl oo wixii uu jaceyl u taqaanay ma laakiin taageero maxaa madaxweynuhu maxaa u tagaysaa isbitaalka ma yar horta waa isbitaal weyn 12 milyan oo dollar investment ah iyo biriyo maxaan ku raadsadaa 3 milyan oo dollar kala si gaar iyo waxa adeega aan jirinay la soo koob horta ma yar waa yacni project mega projects aan ka hadli jiray oo kamid yahay ما يرى لكن واحد صار أنا هل من ذا سي مهمة ضد اللي يرى سيدي دكتور محمد ساقو كله أو صومالي أو أد ضلية إذا لي ما دام فكر كان أو فكر كي ولي ما انتقاطع نيروبي أن كفرنا إسبتالك أنا يدين إسبتال بدنا صومالي هذا نيروبي كفر ريال استيت بدنا صومالي دار وقرحنا يا نيروبي كيال وفي عيني ما أنا كدهنا ضل واي كينيا واجي أنا أدنى أوين أنكو عرضنا واي مدين لكن ما أنت وحقوق باهي بدن سوماليا أدي إسبال فريا أدي دار البسية أدي معلو انتبه سوماليا وسي باهي بدن مركا مهمة دا سوجي دتي أنت إكانت وضل يردا initiative إليه ماذي waxa ay sameeyaan hadalkiisa waxa rajeynayaa inaa fahanteen wuxuu dhahay waxa meeshan ikeena isbitaalkan ma aha materialka ma aha yacni isbitaalka sarta xiisa inaan soo arko ma aha u qabo tabcan ninkan madaxweynaha adduunka dhan soo arkay meelo ka qurux badan waa isbitaalkan laakiin wuxuu xiiseenayaa dadka arrinkan sameeyay inuu taageero u muujiyo فهميسا يعني إنه ضد كان كله well done شقدينا وشقفي عن دلكينا ديسنوسين هراء السعودة مدحوينهن وكعقل بدنيا مدح ذيك حتى نفتيس وكعقل بدنيا حلي وهراء جوجر ويدنا وحكوا فكراي لكن هذا وحكوا كدوي قبيرنين كذا لما يستر صببته نين كان وحكوا فهمي صوماليا إنه أباهنتها الصومالي ذا cid kale in Soomaaliya wax ka bedeli karin cid kale in Soomaaliya wax ku soo kordhi karin ee Soomaalideedii in dib u dhisata ay tahay oo Soomaalideeda lagu soo celiyo oo Soomaalideeda loo xasiliyo marka koowaad amnigu ka shaqeeyay marka labaadna hammi wuxuu u haystaa in dadka uu soo sabo uu soo dabo uu soo celiyo oo xiisa dalka u geliyo si dalka ay u dhistaan waxaa la dhahay jin ninka keenaa bixiyo Soomaaliya burburisay Soomaaliland dhisi karto hadda anaga kaliya waxa u baahnayna waa amni kulligeena dalka isku soo aruureena waa soo noqoneena waa dhiseena waa qurxineena waa ka shaqeynena waana naloo imaanaya waana la maal gashanaya